maalmihii mugdiga ahaa ayaa u soo idlaaday. adduunku gelinba waa cayne. haddii uu shalay ahaa fanaan fankiisa laga daba dhacay, maanta waxa uu ka mid yahay culimmada ducaadda ah ee u istaagay faafinta diinta islaamka. 40 maalin oo khuruuj ah oo uu raacay ducaadda tabliiqa ayaa noloshiisii wax badan ka beddelay kadib markii uu Alle soo hadeeyey. saaxiibadii fanka ee shalay waxay maanta saaxiib ku noqdeen Alle dartii iyo faafinta dacwada Alle. masraxyadii ay ka heesi jireen ayay maanta iyagoo mashaa'iq ah khudbadaha diiniga ah ka jeediyaan. sheekadan ayaan ku eegi doonaa noloshooda iyo sida ay isku beddeshay. waa qaybtii labaad ee xalqada tabliiqa barnaamijkani oo xalqadiisii hore aan kaga hadalnay aasaaskii tabliiqa. muuqaalkana sii faafi. adduunku gelinba waa cayne. saaxiibadii fanka ee shalay maanta waa ahludiinka iyo ducaad dadka gaarsiiya dacwadda Alle. maxamed deeqsi waxa uu ahaa fanaan iyo heesaa ku caanbaxay codkiisa tolmoon oo uu ku tumo heesaha. nin aad looga jeclaa masraxyada fanka iyo qoobka ciyaarka. saaxiibkiisii fanka ninkii la odhan jiray FJ Xabeeb ayay si wadajir ah ugu tamashlayn jireen masraxyada fanka. haddase waxa ay wakhtigaasi u yaqaanaan waayihii mugdiga nolosha. saaxiibtinimadii fanka waxay dhaxli doontaa saaxiibadii khayrka isku raacay. maxamed deeqsi sida uu ku warramay, habeenada ka mid ah ayaa iyagoo wada fadhiya ay salaadu ku gashay. saaxiibkii ayaa u soo jeediyey inay masjidka tagaan oo ay dukadaan salaada. waxaase xigay in culimmadii tabliiqa oo masjidka ku sugneed tashkiilin kadib ay khuruuj ula baxaan. 4 bil oo quluubtoodu ay ku degday qalbiyadooduna ay ku xasileen ayaa waxa ay ku qaateen masaajidda iyo goobaha cibaadada. waa wakhtigii iigu quruxda badnaa ayuu ku sheekeeyey daaci maxamed deeqsi. waxaa halkaasi uga bilowday waayihii khayrka iyo baraaraha. maalmo qurux badan oo ka duwan kuwii hore, naftuna ay degganaan iyo qanacsanaan ku dareemayso. waa cusub ayaa u bariyey maxamed deeqsi iyo saaxiibkii FJ Xabeeb. barashada diinta islaamka iyo faafinta dacwadda Alle ayaa ay isku garab wadeen, ilaa hadda ay noqdeen mashaa'iq khudbadaha diiniga ah iyo wacyigelinta bulshada ka jeediya masraxyada ay shalay ka haysi jireen. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u arsaaqay oo siiyey doorasho ahayd inay xaqa doortaan oo ay baadilkana ka tagaan. saaxiibadii fanka ku midoobay waxay mar kale ku midoobeen khayrka iyo Alle dartii. Alle ayaa hanuunka leh. waxaase mudan in la xuso jamaacadii tabliiqa ee ku baraarujiyey in jidka Alle aan laga leexan. 40kii maalin ee khuruujka ay u raaceen ducaadda tabliiqa waxa ay noloshoodii ka jeedisay fisqigii ay ka yimaadeen oo sahlanaan lahayd inay ku laabtaan haddii aynan ku mashquulin khayrka. tan iyo xilligaasi waxay ka mid noqdeen jamaacatu tabliiq. waxa ayna dhinac ka qaadeen dacwadda Alle. qaar badan ayaana Alle ku soo hanuuniyey qisooyinkooda iyo wacyigelinta diimeed ee ay magacoodu uga faa'iidaysteen. deeqsi iyo sheekh Xabeeb, wiilashan dhalinta yar ee doortay xaqa insaanka la faray, uma ayi doonaan maalmihii mugdiga ahaa oo ay ka soo tallaabsadeen. waxaa siciil qaba kuwa weli haya jidkii shayddaanka. allaha soo hanuuniyo. haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.